caawa Muuse Biixi Cabdi oo ooda ka qaaday lacagihii la meel ay mareen qasanadihii la Jabuuti ku shubtay oo akoonkiisa iyo jawaano la shubay ama tafta u buuxiyay wasiir Cali Mareexaan oo caawa Burco ku sugan ama ku sii jeeda sida xog u sheegayaan Maxamed Kaain ayaa isaguna caawa Burco ku sugan iyadoo wararka ilaa iyo hadda ay soo baxayaan sheegayaan in qaar kamid ah ragii salaadiinta iyo waxgaradkii iyo aqoonyahankii reer Burco shalay hadlay ee sheegay marnaba inaanay aqbaleen dagaalo beeleed iyo Burco laga abuuro oo la isku dhufto beelaha walaha guud ahaanba waqti isagoo gabanaya ama qaab qarsoodiya uu galay magaalada Burco taas oo uu doonayo inuu ku kala furfuro sida gobolka Sanaag Xasan Gaafadhi gobolka Saraar wasiirka cadaaladda ee isaguna reer Yunis wasiirka kale xiriirka golayaasha ee isaguna qayb ka oo Cumar guud ahaanba waxa oo ay ka qaaday Muuse Biixi 100,000 oo lacaga oo la meel ay jaaniyo cib dhigaan wasaarimaha dabadda ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna warbixin uu soo diray qaybta emailka ee wakaaladaha Baraarug waxa uu sheegay in xubno ka tirsan dowladda Uganda oo uu soo diray awoodda ku haysta dictatorka dalka Uganda in iyaguna soo galeen wadanka wasiir Maxamed Kaain oo go'shaara hagoogan ayaa guud ahaanba wareegaya xaafadaha bariga gobolka Togdheer xarunta guud ee xisbiga wadani u qaabilsan ee gobolka Hargeysa xogayaha haday noqotay agaasimo guud ahaanba laamaha kala duwan ee xisbiga uu magacaabay sidii loo shaqeyn lahaayeen murashaxa xisbiga arrimihiisa siyaasadda ayaa guud ahaanba waxa adag dhanka xiriirka marka la sameeyo xisbiga mucaaradka sheeganaya ee wadani haday tahay dhanka haweenka iyo dhanka xubnaha kale ee siyaasiyiinta xisbiga matalaya ayaa guud ahaanba sidii macluumaadka dhankooda ka sii daran gobolada Togdheer iyagana guud ahaanba waxa adag xiriirka xagga xisbiga mucaaradka sheeganaya ee wadani isla markaana xiriir kala duwan oo dhanka telefoonka iyo dhanka kale kumanaa guuraysan inaan iyaguna ogaano arrimaha sida ula socdaan ee xukuumadii talada dalka haysay iyo wasiiradii gobolada barigo isu kala qaybiyeen iyo howlgallada xilligan ay bilowday xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi guud ahaanba dhaqdhaqaaqyada xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa guud ahaanba madaxdooda laftigooda shacabku ay leeyihiin